بسم الله الرحمن الرحيم ومركله iyo barnaamijkii iska jir walaalaya aad bay muhiim u tahay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan dawladnimada iyo waa maxay dawladnimo Soomaalidu waxaad moodaa dawladnimada inay ku haleynayaan madaxda wadanka may dawladnimo dadka oo dawladnimada u diyaar ah fahma raba wadankooda inay dawlad wanaagsan ka dhalato ayay ku imaan kartaa si kale kuma imaan karto ha u malaynin hadaan dawladnimada ay ka shaqeeyeen dawlad wanaagsan ku dhala doonto dawladnimo waxay u baahan tahay dad fahma dawladnimada sida darteed ayaan waxaan leenahay dadaal badan ay rabtaa waqti dheer ayayna qaada doontaa mana dhawa dawladnimo maanta waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno waxyaalihii aan ka baranay oo foosha xumaa sida lagu soo xulo xildhibaanada wadanka Soomaaliyeed waxa aan sheegi doono maanta oo ka kooban 15 qodob oo 15 qodob oo aad u fool xun oo xildhibaano lagu soo xulayay ayadoo shacbiga Soomaaliyeed daawanaya waxaan leenahay ha laga hortago 15 qodob hadaadan ka hortagin ma heli doontid golo shacab iyo aqal sare oo ku matala adiga dad ayagu danahooda wata ayaa noqon doona golayaasha sida darteed bari ha qaylinin haday waxa ay rabaan ee iyagu ay ku dhaqaaqaan sida darteed hadda isku day inaad ka shaqaysid in ay soo baxaan xildhibaano aad rabtid oo aan ku soo bixin 15 qodob aan soo sheegi doono maxay yihiin xildhibaanada tartanka ka qayb galaya oo inta waqti darbiga lagu dhajiyo la yiraahdo hal kala aada salaada jimcaha oo ayagoo jimcihi ku maqan tartanka xildhibaanka la qabtay oo markuu soo noqdo la yiraahdo waaba lagu kala baxay xildhibaannimadii oo sidaas xildhibaanka oo nin kale ku qaatay kuraasta xildhibaanada oo la kala siisanayo ugu yaraan 100,000 200,000 300 ilaa iyo milyan dollar ninka soo iibsaday kursigaas adimo ku matala ha ooyin bari hadii kale hadda diid inaan kuraasta la gadanin waxa jirta in madaxweynaha fadhiya mar walba oo tartanka asaga ka qayb galayo isla markaasna uu iibinayo kuraasta xildhibaanada soo baxay waxaan ku sheegayaa ergada mudanaha tartamaya inuu asagu gacantiisa ku soo qoranayo oo asagu ergadii laba imaanayaba codka bixin lahayd waxaan rabaa inaan ku sheego in ergo xamar diyaarada looga daldalayo lana geynayo goobaha ay doorashadu ka socoto sida darteed xildhibaankaaba ergeydii diyaarada ku wata tartankiina asaga geynaya sidaas ayna ku soo baxayaan war hooy ka hortaga arrimahaas ma ahan waxaasi xildhibaannimo bari ku matali doona adiga waxa dhacday xildhibaan inta iska bixiyay qidmadii oo inkastoo fool xuntaan xildhibaannimada qidmad lagu xiro albaabka asaga oo taagan oo kaarkii wata loo diiday inuu tartanka ka qayb galo oo la daawanayo dadka Soomaaliyeed ee marqaati ka yihiin waxa jirta erga sax ah oo dhowr iyo kontonkii ah oo inta goobtii doorashada yimid la xabadeeyay oo markii la xabadeeyay qof ku dhintay oo qofkii ku dhintay albaabka hortiisa yaalo oo doorashadii dhacday halkaan looga guuleystay erga beenana ay codayday waxa jirta in la kaxeeyay oo xildhibaanka ninka u tartamay oo ka haystay waardiyayaalkiisii cunna kariyayaashiisii adeegayaashii guryihiisa oo uu yiri waa ergadaydii oo halkaas ay uga qayb galeen tartankii oo uu sida xildhibaan ku noqday waxa dhacday oo qodobka 9aad ah wasiir shaqaalihiisii wasaaradda inta ka haystay geystay oo yiri waa ergo iga qayb galaysa tartanka yiri oo xildhibaan sida ku helay waxa aan ku sheegayno dhamaantood waa wax dhacay waana 15 qodob xildhibaan uma tartami karo nin aan lacag haysan waa arin umada dhan oo Soomaaliya ka warqabto sida darteed xildhibaannimadoodu sad xildhibaan u noqoto waaba beecba wadanka Soomaaliyeed ceeb caleek kursi ay hablaha Soomaaliyeed u tartamaan ay xaq ahayd oo loo tartansiyo rag kaliya ayaa la hayaa ayadoo gabadhii albaabka taagantay barooranayso la yirinayaa ka wareeg meesha waxa soo baxday oo aan baranay doorashooyinkii u dambeeyay kelmadda la yiraahdo manxiis maxaa laga wadaa waxa laga wadaa tartamayaashii oo sii wadanaya qof iyaga la tartamaya oo aan cid kale la tartami karin oo manxiiskiisii oo helay 100 asaguna 99 uu ku guuleysanayo oo dadka ay fiirsanayaan ay qoslayaan oo kursigooda xildhibaannimada oo saa ku soo baxayo barina aan rabtay xildhibaankaas inuu adiga ku shaqeeyo oo golaha shacbiga adiga ku matalo waa nasiib darro weyn iyo ceeb weey waxa jirta tartankii xildhibaan tartamaya oo 9 subaxnimo diyaarad ka raacaya xamar oo tagaya goobta tartanka oo ergadiisa diyaaradda ku wata oo 12 duhurnimada ka soo noqonaya asagoo xildhibaankii soo qaatay xilkiina loo dhaariyayba waa yaab waxa ay ka dhacday meel kala duwan ay ka dhacday waxaan ku sheegayaa in nabadoonnadii iyo suldaanadii annagana matalayay hadayna u hoggaansaneen awaamirta sida ay rabaan dadka tartamaya iyo madaxdoodu in la bedelayo ayaga dhanba
lagu samaynayo adiga nabadoon cusub iyo lagu samaynayo ugaas cusub iyo suldaan cusub walaal macaan 15 kaas qodob ayaa xildhibaanimo lagu noqonayo ayadiyaa loo bartay haddana waa maqlaysaa in qof aan lacag haysan qof aan la wadan qof aan asagu ergada samaysan karin qof aan dawlad goboleedyada wadan inuu xildhibaan noqon karin sida darteed xildhibaanada saa ku soo baxa hadaa rabti inay golaha shacbiga soo galaan adigana ay ku maalaan si wanaagsan u shaqeeyaan sharcigana dhowraan madaxweyne fiican ku doortaan waa riyoonaysa saaxiib aad iyo u riyoonaysa xildhibaankaas oo iibsaday wixiisa asaana doona ma rabtid miyaa inay waxaas u dhacaan hadaa fursad leedahay ka hortag wardiida foolxumada diida waxaan rabaa inaan kuu sheego kulana wadaago 329 mudane oo aqalka sare iyo aqalka hoose ah ayay Soomaalidu doora doontaa waxayna matali doonaan 15 milyan oo qof macnaheedu waxay tahay halkii qof waxa uu matali doonaa 45,500 oo qof oo matali doona war 45,000 waa ka xoog badan xildhibaan foolxumo raba inuu ku soo baxo ee iska qabta si ay ugu soo baxdaan xildhibaan wanaagsan 10 lama ilaa waana ayaan rabnaa inaan galabta idin barno ma isku facaa xildhibaanada ka soo baxay Soomaaliland iyo xildhibaanada maanta ka soo bixi doona koonfurta Soomaaliya ma sheegan karaan labadoodaba xildhibaannimo ma macquula inay sheegtaan xildhibaannimo haba yaraatee macquul maaha xildhibaanka ka soo baxay Soomaaliland waa xildhibaan shacbigiisa iyo dadkiisu ay doorteen oo ku faani kara xildhibaannimada oo dadka ku matalaan xildhibaanka raba inuu xamar ka soo baxo iyo koonfurta Soomaaliya oo dhanna kelmadii oo nagu yiri Maxamed Ibrahim Cigaal ayaa maanta xaqiiq ah oo waa walan weynaysi way macnaheedu waa reer walan weyn Sooma adan garanin Soomaaliya iyo Somaliland xildhibaanada ka soo baxaya mas'uuliyiinta ka soo baxa isku facna maaha isku mustawana ma joogan isumana qalmaan 10 lama ilaawana waxa ka dhacay Somaliland waxaan idin leenahay u diyaar garooba koonfurta dawladnimo diyaar uma nihin dawladnimo mana rabna dawladnimo aad iyo aad aan u mahadsantii